maktabaddan buugaagta ee Sacuudiga ah maanta qiimaheedu waxa uu gaarayaa 3 bilyan oo dollar waxa ay kobcday xilli dadka shacabka badankoodu aanay waxba akhriyi karin sanadkii 1974 Cabdiraxmaan waxa uu ka furay xaafadda Malas ee Riyaad maktabad yar oo iibin jirtay buugaagta la isticmaalay iyo farshaxano ay lahaayeen ajaanibta dalka ku nool qoyskiisu waxay ka arkeen mustaqbal wanaagsan oo mashruucan ku jira inkastoo xilligaas qiyaastii 60% dadka dalka aysan waxba akhriyi karin kadib mid kamid ah wiilasha qoyska Al-Caqiil ayaa u safray New York iyo London isagoo halkaas kala soo laabtay aragti cusub ujeedadiisu ma ahayn oo kaliya iibinta buugaagta balse waxa uu rabay in ganacsigu ku fido qalabka elektarooniga ah iyo agabka xafiisyada iyo dugsiyada sanadkii 1979 waxa si rasmi ah loo aasasay shirkadda Jariir waxaana la bilaabay ballaarinta ganacsiga waqtigu waxa uu noqday mid ku haboon maadaama Sacuudigu maalgelin weyn ku sameeyay waxbarashada halka Jariir ay bixisay agabkii loo baahnaa intii lagu guda jiray sanadihii 1980 iyo 90 shirkadu si tartiib ah ayay u kortay iyadoo fureysay laan cusub marba marka ka sii dambaysa sanadkii 2003 Jariir waxay noqotay maktabadii buugaagta ee ugu horeysay ee lagu qoro suuqa saamiyada Sacuudiga markii uu dhacay cudurkii COVID-19 iibka internetka ayaa kordhay maktabadana qiimaheedii kor ayaa u kiciyay markii la gaadhay 2024 dakhliga shirkadu waxay gaadhay ku dhawaad 3 bilyan oo dollar Jariir waxay sidoo kale noqotay mid kamid ah daabacayaasha ugu waaweyn ee afka Carabiga iyadoo af Carabi u turjuntay in ka badan 6,000 oo buug maanta Jariir waxay leedahay 68 dukaan oo ku kala yaala Sacuudiga, Bahrain, Qatar, Kuweydiga iyo Imaaraadka